dhegaysanaysid xukuumadda imika la dhisay Soomaal xukuumadda imika la dhisay cadaalad maaha waana ka xunna waxa ay samaysay haddaan nahay beel weynta gurgureed ee curadka Soomaalida lagu tilmaamo haddaan nahay waan ka xunna codka ka soo baxay golahayada hawaashiyaha uqaasha indheer garatada waan raacsanna waan garab joogna waan nagu duumannahay xaqeenna waa inaan duubnaan iyo cudud iyoolay xeerba aan ku raasino weeyaan ha ka soo laamina waan raacsannahay codkaygana waa ka aan soo dhibi Soomaali haddaan nahay waxaan nahay anagu gurguraha galbeed baan nahay gooto meesha la yidhaahdo waxaan leenahay Soomaali waan u baaqayaa war Soomaalidu xoog wax kuma kala qaadato xeer bay wax ku kala qaadataa goobaha Soomaalida oo hadii jeer ahaw gobasha Soomaalida u dhig tan tul qaadanaya ma saami qaysiga imisa goor halka ay cabdi la kala kolku soo baxay beesha gurgurada ka hadanta ma yaraysiba أنا هذا أنا بديني من النهين من وانا كحول هاي من الراعي صومالي هذا الكائن كلا بنته أي ساق أي السامي قيفي سبعة ست كوع من الأوعى سامي قيفي ذا حتى يسعى على أسر دقي وياك دمري قرصلة اللي بلان قاري وان كسيرة الوهي محاربة أفريق تبدق يا بحر أنت اسمع مول بعض بحر وعام كسية اسمع مولك زين شنيلوها ككلام بعض أفضل قلت الجيشين سيرد أفيش اللي عرر أمه تايدين حتى ستة تقول ما راح ستة عن أصيب باقي ولبه آدم فرحي ولا إبراهيم أصيب باقي ولبه والله كقرب كاقل القضية دعس كوما خقولات دوسان حرتها الغلط حدي لقى لامي وحا أضيف الشيء ماشي يقص قبط أديقا وأيدون طبعا هذا كريم اللهم مع السلامة دقن مقالة قوتا أما قلبيت كان مقالة قوتا كسو جيدا بيشو قرقورة دقن لو حانو أولينا يهولا بور إلا يو biyo baxay intaas anaga oo degan in sanadkii kastaba markii wax la ansixinayaba hal degmo naloogu dari oo naloo aqoonsan waaya waxay noqotay wax weyn maanta waxaanu rajaynay labadii cabdi maxamuud cumar uu ku dhawaaq ee dawladdan cusub ay ka noqotay wax kale hadii naloo waaya in labada la ansixinayaan mooday wax kale hadii aan weynay oo nala siiyo degmadii erereed hadii ismaamul ay noqotay ereer waa in halkii ku habooneed annaga iska lahayn degmada waa 90kii degme u horeeyay degmo kastaba degmay dhashaa in degmadii erereed meel kale la geysto horta waan ka xunaa annagu degmadii erereed waa in loo geeyo garasle erarna waa inaa ismaamulna looga dhigo meel yacni maanta waxna aan ku qaadano ma waayna annagu laakiin dulsaarka kan waan diiday Soomaali waxaan ku nahay internet haddii aan xorba ahayn maanta annagu Falastiin baan la midna waxaana guumaysanayna waa sidii yuhuudda oo kaleba guumaysi baan ku jirnaaba ummadda Itoobiya ee xorowday kamid miyaan ahayn ummadda Itoobiya way xorowday maanta war argoba ugu yara way xoroobeen oo laba qabaleed degan annaga oo inta leeg laba gobol baan noqon karnaaba maxaa inoo diiday annaga haddii aan Soomaalida ka weyne war cidii aan ka helaynaan intayada la aadayna annaga haddii aan Soomaalida ka weyne in nala ansixiyo aan ka weyne oo nalagu dul haysto tii anagu waxaa la aadaynaa haddaan soo doonna Addis Ababa la galaynaa haddaan doonnana
dhabuub baanu la galaynaa way ahayn waxaan leenahay waxaan noqon doonaa horta kabihii fadhiga inta lagu gaari waayse yaa ayaan noqonaynaa annagu dee maalinka ay dhowdahay idinkaa garanaya haddii aad qaban weydaan weliba waxaanu cabashada yadaa u gudbinaynaa intaan baarlamaaga la horgey inta aan baarlamaaga la horgey dib u eegis ha lagu sameeyo cidda dulmana ha la xaq siiyaan leenahay annagu haddii ay soomaalidu wadajir iyo duubnaan ay rabto haddii kalena maanta ay noogu dambayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هيا هذا رادنا قول الله بسم الله الرحمن الرحيم نور محمد إبراهيم حين دقنا هاي قبلها قوت وحانا هاي ددك كل شيء قوتا ما أنت تلي لك هذا هدي عن هذا الله قبل كستي أما شنيل الأوريجري وحنا بيش الله بعض وقبل هدي بيش يور أي لهاي قبل كلامنا هقوله حق بو حق قبل كأنا قبل هاي waxaa la yidhi imika anagu waxyaabahaan maqalay magaalooyinka ku hoos jira dirdhaba marmaarsaa ka mid a deegaanka soomaalida lagu gooyaa sida loo soo riixayey dhulka beesha ay degan tahay oo iska leedahay waxaa la soo geliyey garasle gobolku maanta wuxuu ku waajibahay in laga dhigo garasle hadday soomaali tu maaragtay midaysan ay tahay tii oo dhan ba iska soo dhaaf adiga oo horta marba maanta waxaan qaadan karaynay gobolkii waxaa iska lahaa beesha ciise anigu beelweyn dad gurguhaantaana ka qoro waxaan ku jiray dad ku hoos nool gobollada dhulka degmooyinka laga bixiyo waa naqaanaa daraad qaraf baa madaxweynehan siiyey madaxweyne mustafa muxuu kaan siiyey xaggee la degan yahay daraad wuxuu aan siiyey dhuyil xaggee la degan yahay gablali baa gablali annagaa u dhignay xaqii ay lahayd annagaa mashaqadii u dhigno qarashka annagaa bixiyo meel leeyahay dadka ugu tiro badan baan degmada annagu gobolka si dadka dakhliga laga qaatanay dawladda deegaanka soomaalida gobolka meesha dakhliga laga qaatay beeralayda annaga weeyay ilaa iyo 17 qabale iyaa laga qaataa dakhliga 29 qabale waana meesha dadku ugu badan yahay dawladdu waxay maanta dawladda Itoobiya waxay la socotaa dad ahaan shucuurta meesha degan Soomaalidu waxay eegtaa dhul iska cidlo balaaran oo tartiib lagu baxsan anoo deetaa ma qaadan karno waa dad maanta wax aqoonyahan baan leenahay wax garad baan leenahay halkii maanta ugaaska iyo awqaasha deegaanka beesha gurguha ay ka dhawaajiyeen sidii horey u soo sheegay adeerkay waan garab taagannahay maal iyo muruqba xaqayga in la doono ma ahaynba xaqaygu maanta ma saamaysna degmo mana la siiya ma ahaynba xaqaygu annagu xaq ma meesha kuma dhahay dad degmo ka badan baan nahay gobolka labaad maanta xaq hantii la soo gobolka labaad sita annaga gobolka maanta halkan laga biirinayo annagaa iska lahay beel ahaan markii la eego dadka ku dhaqan 4 beelood baa ka jirta gobolka si